وأصلا ما سنت هاي إن بدنا وكل عليه خلاف فرط اللي شخصيا معها ليه نعم ده كان هو صاحبه إسرائيل كان تاريخ ولا له الشغل الشغلي دور ده كشغل الشغلي مدرب الشغل الشغلي اللي بس أنا عليه إيشو هو اللي هو عن سيد عن بيحصل كل شيء هي وحويه بس كان بركة البنك المبادئ اللي جاء مسيا فيدراليزم oo ah si waxa loo yaqaano central and periphery oo ah dowladda dhexe iyo goboleedyada awoodaha see loo qaybsanayaa resources see loo qaybsanayaa dhismaha dowladnimo federalismka qofku ka aaminsan yahay dabcan dowladda dhexe markasta oo qofku uu joogo isu burinaya mar walba in dowladda dhexe ay awood yeelato iyadoo ay dalkii mas'uul ka tahay maxaa la yiraahdaa saas daraadeed ay tahay wax kasta looga dambeeyo dadka kale markii dowladda la joogo dowladaha xubnaha dowladda federaalkuna ay leeyihiin wal mas'uuliyad gobolka anaga nagu dhaxaysa Puntland baan joognaa 1200 kilomitir oo Soomaaliya ayeeyay markii dalka laga soo bilaabo ilaa alla aad tagto intaas mas'uuliyadeeda ay ugu dhaxaysa baahideedii caafimaad waxbarasho biyo amni marka dowladda hadda dhexe oo inta naga kaabaysa oo nala qaybsanaysa caafimaadkeedii waxaad ka geysanaysa gacan waxbarashada ka geysanaysa amniga lagu taakulanaysa ma ay jirto sidaas daraadeed waxa weeye ma dhici karto in la yiraahdo awoodii dowliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah mas-uuliyadiina idinkaa leh oo haddii macalimiintiinu ay mushaar waayaan haddii askartiinu ay raashin weydo haddii ay shaqo ku marihin dhibtu taa weeye waxyaalaha midaan kuu sheegaya dowladda federaalka maalba waxay tidhaahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha iyo civil servants waxay ka hadlayaan waxa weye shaqaalaha xamar jooga shaqaalaha marka Puntland jooga midka Jubaland jooga midka South jooga midka jooga mataqaana Hirshabelle waysan shaqaale dowladda ahayn waxay oranaysaa mar kale ciidamada yada maaragtay ilaa December mushaharkooda waa bixin haye waxaa laga hadlayaa SNA-da joogta inta u dhaxaysa Jowhar iyo Markamiya laga hadlayaa waa jooga marka waxa weeye waxaa la isku hayaa waxa weeye essence-ka waxa weeye waa nidaamka federalismka waxa laga aaminsan yahay iyo awoodaas iyo mas'uuliyadda loo qaybsanayo waa gartay dowladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas'uul ka tahay marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dowladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay kamid tahay ciidamada arrimaha dibadda waxyaabo badan oo noocaasi lacagta wadanka uu yeelanayo marka adinkii laftirkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aad la sameysanaysaan in aad raadinaysaan waxyaabo dastuuriyan aadan xaq u lahayn ayada oo dhinaca kale tana dowladii dhexe ay joogto oo sharciyan